magacaygu waa xasan cabdi Illaahi waxaan ahay macallin dhiga amba ku takhasusay kuliyadan political science-ka aan xiriirka caalamiga iyo siyaasadda isla markaasina ka dhiga jaamacadaha wadanka khibrad dheerna u leh in badan dhigayay ayaan ahay kuliyadan barashada dunida iyo xiriirka caalamiga runtii waxa kamid tahay kuliyadaha social science-ka ama cilmiga bulshada cilmiga bulshaduna sidiisaba waa cilmiga laga doonayo in wax badan laga ogaado bulshada ama bulshada markaasi haday tahay qaybaheeda kala duwan wax laga barto marka kuliyadan barashada maxaa la yiraahdaa xiriirka caalamiga iyo dunidu waa kuliyadaha gaarka ah ee ardayda lagu talagalay ka soo baxaysa secondariyada amba schoolska dalka inay wax badan ka ogaadaan aqoonta xiriirka caalamiga waxa sidoo kale ay wax badan ka baranayaan qaabka ay dunidu u shaqeyso waxa sidoo kale wax badan ay ka ogaan doonaan marka ay kuliyada ku biraan ama ay bartaanba in ay helaan aqoon ku filan oo ku saabsan in ay bartaan dawladda iyo waxay qabato dawladaha iyo qaabka ay u shaqeeyaan hay'adaha caalamiga iyo noocyada kala duwan ee leeyihiin hay'adaha caalamiga iyo sida u shaqeeyaan sida kuwa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa kuwa wadamada ama dawladuhu ay wada sameysteen ardayda sidoo kale wuxuu kooraskani u faa'iido u yahay inay ardaydu bartaan xalinta khilaafaadka soo kala dhaxgala dalalka ama dawladaha iyo macaamilka guud ee ka dhaxeeya dawladaha kala duwan ee markaas dunida waxa kale ugu muhiimsan oo ardaydu ay markaa ka baran karaan qaabkay u shaqeeyaan safaaradaha wadamada kala duwan ama safaaradaha dalalku ay ku leeyihiin dalal kale iyo safiirada ka shaqeeya safaaradahaasi iyo shuruucda lagu maamulo ay ardaydu ay faa'iido ka heli doonaan waa maxay ujeedooyinka laga leeyahay in kuliyadan markaasi lagu dhigo ujeedooyinka laga leeyahay in kuliyadan lagu dhigo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye ugu horeyn in ay ardaydu noqoto qaar aqoon iyo waayo aragnimo dheer u leh dawladaha iyo qaabka loo dhiso qof kasta oo muwaadin oo wadan degan waxa uu baahan yahay in uu barto aqoontii dawladnimada sidaa daraadeed ardaygu marka uu ku soo biiro kuliyadan maxaa la yiraahdaa xiriirka caalamiga iyo barashada dunida waxa uu baran doonaa qaabka loo dhiso dawladaha iyo sida ay dawladuhu u shaqeeyaan waxa uu aqoon fiican ka heli doonaa dawladaha dunida iyo halka ay ka yimaadeen xilligay soo aasaasmeen iyo taariikhdeedii guud iyo wadamada guud ahaan Afrika iyo qaaradaha kale ee dunidaba waxa ay ardayda ka soo baxdaa aqoon fiican iyo way aragnimo ay ka heli doonaan oo ay baran doonaan khibrad iyo markaasi maxaa la yiraahdaa way aragnimo la xiriidha siyaasadda arrimaha dibadda ee dalalka dunidu iyo qaabkay u shaqeeyaan sidoo kale waxa uu ardaygu aqoon fiican ka baran doonaa marka uu kuliyadan ku soo biiro in uu barto waxyaalaha wadankiisa ka dhacaya inuu aqoon fiican ka yeesho waxyaalaha wadamada kale ee jaarka iyo dunida ka dhacayana in uu aqoon fiican u yeesho markaas ardayga ka soo baxa kuliyada xiriirka caalamiga iyo barashada dunidu waa arday ku hubaysan in uu noqdo arday maxaa la yiraahdaa aqoon dhinacyo kala duwan leh waxa uu baranaya xisaabaadkii waxa uu baranaya maxaa la yiraahdaa khilaafaadka iyo xalinta sida khilaafaadka loo xaliyo waxa uu baranaya hay'adaha caalamiga nooca u shaqeeyaan ardaydu markay dhameeyaan maxay ka shaqeyn doonaan mustaqbalkooda maxaa uu noqon doonaa inay ka shaqeeyaan ardayga barta xiriirka caalamiga iyo siyaasadda marka uu dhameeyo amba uu qalin jabiyo waxa la rajaynayaa amba in laga baahan yahay amba uu noqon karo mustaqbalka inuu noqdo la taliye dawladaha amba dawladaha tala siiya waxa uu noqon karaa oo door muhiim ah ka ciyaari kara in uu ka qayb qaato wada hadallada iyo maxaa la yiraahdaa negotiationska wadamada kale iyo dalkiisaba inuu noqdo mid markaasi matala waxa uu khibrad fiican ka heli kara ardaygaasi inuu noqdo mid akhlaaqiyan iyo edebtiisa iyo protocolka iyo qaabku dawladaha kale iyo dalalka kale ula macaamilaya ay noqoto mid waayo aragnimo fiican siisa waxa sidoo kale uu baranaya khibrad
ku xiriirsan ina uu professor amba macallin jaamacadeed uu noqon karo jaamacadaha iyo maxaa la yiraahdaa jaamacadaha heerka sare oo markaas wax ka dhigo iyo inuu daraaseeyo oo research noqdo oo cilmi baaran noqdo ka shaqeeya waxyaalaha ka dhacaya kolba wadanka iyo dhibaatooyinka jira sidii xal waara loogu heli lahaa maxaa looga baahan yahay arday noocee ayaa soo gali kara ardayga loo baahan yahay inuu ku soo beero kuliyadan xiriirka caalamiga iyo barashada dunida waxa weeye arday marka ugu horeysa markuu secondary dhiganay luqadiisu dhisnayd ardayga haday noqoto luqadiisa Soomaaliga haday noqoto luqadiisa Carabiga iyo haday noqoto luqadiisa Ingiriisiga oo tan ah jaamacaduhu badankooda ay ku baxaan inuu noqdo ardaygaasi arday ka dhisan sidoo kale arday si fiican u yaqaan xisaabaadka ayaa looga baahan yahay taariikhdana waa muhiim marka ardaygii taariikhda si fiican u yaqaana luqadiisu dhisan tahay luqada badan yaqaana waxa shakil aan ku jirta inuu noqon karo qof khibrad iyo waayo aragnimo leh isla markaasina buuxin kara wixii looga baahnaa qofkii doonaya inuu wadankiisa wax ka qabto qofkii doonaya inuu siyaasi noqdo wadankiisa wax ku soo kordhiya qofkii doonaya inuu dalkiisa dhiso qofkii doonaya inuu barto maxaa la yiraahdaa safiir noqdo wadanka matalo qofkii doonaya inuu mustaqbalka dhibaatooyinka ka jira ama ka dhici kara meesha iyo deegaanka uu ku nool yahay inuu wax ka xaliyo wax ku soo biiri kara kuliyada maxaa la yiraahdaa global studies and international relations